كومنتي وانا اسكك حيا سياد اسكب بالله صوبت مركب كل لو كن مركب ملاس لقارسيا ربعنا نتصل بالله أنا قاعد نحفظ هاك سنية قف يسوي كلام جريا مسؤوله حلبان واحد دون طعام قفني مسوي كريا وعفيف قف كي سوى على نمبر كي هو هاي سوا إن شاء الله قالوا له سوي جرا شاي صداقة لا فهم جرا قالوا لا فهم جرا أوف راح دي ريرمي يعني ريرمي وسوعي وأركان إن الله يفكر جرو سوعي يعني واحد يصيح عن الدنيا ممكن بس والله سيدي بنسوي جدا الفيس بنقدر موت الفيس عادي نقدر إن إذا أنا دجال كجرو أسكر أكو هذا رسمته دجال وحفظ بالدعم قضون عادي أنا هلا الشهر قريه هاي لوبنا حق قدر كودن وحلا حق قدر كم بعد مقت أنا ما أسكت لنا هاي قفان حق قدر هند وحنا نصير شكلنا ما قرنا لأن حق كسر جدا الله والمحي يسوى عيان لايف ما كجرا وجداني بسم الله والله كوانا نوفي موت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مد الصوماليات شعبي الصوماليات ملكست أدونك جوكتوان السلام يا كل جين ننكي شيخ شادي صاحب القهوة إنه سودو جدا إنه باكو عرّي مسكين هو دقال الله قريب أنا موقت مركا إنه با يري رادن مركا كوبات مركا لبات waxaan rabaa halkan aan uga mahad celiyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ku joogan qof kasta oo maxaa lahay ka dhigay dulmigii iyo fuquuqii iyo takoorkii soo cidii ay uga dhaqantay wasiir Khadiijo kaas oo ilaa hadda hawshiis wali aynan waxba iska bedelin oo wali ay socoto waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo oo idin sheego arrintaas inay wali halkeedii tahay oo wax iska bedelay aan jirin waxa kale oo rabaa inaan idin sheego oo raba halkan inaan kala hadlo oo raban dhammaan dadkii shalay daawanayay kuwii xalay daawanayay inaan raali gelin buuxda aan idinka siiyo shalay markaan xanaaqsanaa maan is control karin erayo aan dadka Soomaaliyeed aan u fiicnayn dhagaha Soomaaliyeed aan u fiicnayn oo intaan leefka ku jiray xaggan aan ka sheegay oo xilli aan careysna ku guda jiray isdifaacid oo ku hortagay dad aniga dagaal ugu jira aan xaggan ka idhay kuwaas oo ay kamid ahaayeen laandheer aan ahay reebel waa midgo ama waa dadka laga tiri badan yahay boqolkiiba boqol waan ka raali gelinay waan ka xumahay ومaanan tala gelin bareer maynan ahayn laakiin waa dareemi kartaan nin dhalinyaro ah oo meel lagu bahdilo la xumeeyay sida uu ku jawaabi lahaa hala si sheer gareeyo live-kan umada Soomaaliyeed waan ka raali gelinay boqolkiiba boqol ugumaanan tala gelin waxay ahayn qalad aan maartay waqtigiis aan ku soo aadin buu sababta ay u dhacday arrintaasna ودكتين ولا دلمي قف دلمي ما هن قف شعبه ما هن قف عادية ما هن قف أن كنت المامي كرو يعني قف اسك عادية هرتا شعبك الصوماليات dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol fariimaha hadii soo diraysanad buu badan yihiin ma wada akhrin karo telefoonada saa u tirada badan kama wada jawaabi karo ma wada qaban karo dad yar baan ka qaban karaa waxaan horta idin sheegayaa inaan nabad qabo inaan gurigeyga joogo in aan xaaladda caadi tahay sidii waagii hore aan waxba iska bedelin
wixii iman doona Allah aclam waxaa kaloo rabaa inaan idin sheego inaanan qabin hal sheer garaya wax la yiraahdo baqdin ama cabsi ama walwal ma qabo just kale waxaan ahay nin dhalinyaro oo dagaal ku jira dagaalka qofku kula jiray inuu yahay qof dawladda kamida golihii wasiirada kamida baarlamaankii kamida qof noocaas weeyaan qofka anigu hadda aan dagaalka kula jiro oo rabo inaan iska dhiciyo qof noocaas weeyaan qof noocaas weeyaan qof xasaanad leh waa qof ku fadhiya maqaam sharci ah oo dawli ah ku fadhiya weeyaan aniguna waxaan ahay inaan idin sheego waxaan anigu waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed fanaan ummadda Soomaaliyeed u siman fanaan xamar ay magaaladiisa tahay fanaan jigjiga ay magaaladiisa tahay fanaan ay Kismaayo magaaladiisa tahay fanaan ay Hargeysa magaaladiisa tahay fanaan ay Garowe magaaladiisa tahay bal hadalkayga si fiican loo dhaxo shacabka Soomaaliyeed anigu taan rabaa inaan horta idin sheego waxaan rabaa inaan يعني إذن لو ذاك إن أنا أهاي قف نحاضة بلا تقول في هذا الكاس قف نحاضة أنا عندنا لجين قف لد على دعيو لد ذاليو نولشيسة أساسية إيو بيزك لايف كوحلو يقانو قف لد على دعيانا ما هي يعني شيء ما هي نين أسكر وطو ما يهين دبابات وطل وردينيو وحان هاي قف نولشيسا لايف كيس كونيغا لانول انت اسكدب وان رجينيا ان شاء الله dadka xaqan iga daawanaya dhamaantiin inaad iga qaadateen oo iga aqbasheen raali gelintaas buuxda oo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed oo idaawanayay oo dhagahooda ay ku soo dhacayeen shalay toole eraya aan ku habboonayn oo munaasab ahayn iga raali ahaada 100% ugumaanan talagelin inaan erayadaas dhahe way iga fakatay waxaana iga tanbadisay cadiifada iyo waxa iga tanbadisay hala sii shirgaray waxa iga tanbadisay dagaalka ay gula jiraan qoladan dagaalkaas ayaa iga tanbadiyay inaan erayadaas isticmaalo waad taqaanaan waliga iyo Allah intaan live-ka isticmaali jiray ama shakhsi xitaa mucaarada jiray waliga qabiil maanan adeegsan jirin laakiin aniga waa la ii adeegsaday ما إلا بدون من هالماميو أرجع شليها حمر ماشي نتجيجا معها والله في رسالة الكاس تجيجا معها جو تجيجا أرضو تجيجا أنت أتيجي تكسبني قف قصص ده مقارنة سن وقصير وحلبان وقف كفر إيه مقام دولي أو شرعي قف كأنك السيدة السيدة هيو أنت صح يقدر لها حالado kala duwan oo iga soo gaarayay dad la adeegsanayo ama la soo diray waayo waan ogahay Khadiija anigu toos ima soo aadi karto way garanaysaa shiino wadayam ya hooyam way garanaysaa waxa qofkaan anigu ahay way garanaysaa ayadana waxay tahay wad garanaysaan ayada way garanaysaa anigu marka muhiimadda ugu weyn oo hadda live-ka u soo galay waxay tahay inaan laba qodob inaan idin la wadaago labadaas qodob oo ah maxaa xal isbedelay ilaa saacada la joogo maxaa isbedelay war maxay soo wacayaan waxan bolshiidka maxaa isbedelay maxaa soo socda maxaa filaysan horta hal arrin ogaada wallahi anigu horta cabsi ma qabo laakiin waxaan idin sheegayaa haddii aan u dhinto dhereg haddii aan dhereg u dhinto wax kale iska daay haddii aan dhereg u dhinto waxa mas'uulka ah Khadiija diiri hatta kalima dawladdan ayaa mas'uulka waayo Khadiija dawladda ka tirsan tahay Soomaa maxaa ku filan cabdi dhaanta orod hala soo xidho intaas ay ugu filan Soomaa haddii la yimaado loo dhigay malahan kali waan galaya aanu nande mana diidayo awooddaasna way leeyihiin Soomaa ilaa hadda wax arintaas iska bedelay malahan de wax iska bedelay malahan shalay toole haddii ay ku raali gelinaysay Khadiija waad ogtiin qofka ay tahay ilaa dawladii hore la soo sheeqin waa islaan Mariana oonan qowl xira lahayn oon Ilaahay ka cabsanayn oon bini aadam ahayn oo laba wajiila fiiri laba wajiila naag waxa weeyaan laba wajiila hadde malaha mabda iyada u gooniyaha ma jiraan mabdaeedu waa inay calooshad u shaqayso oo kolba dawladdu timaada iyo cidii timaada ay sacabaha u garaacdo intaas weeyaan
معها موقف كده مدفع اليوم يالكو قطمة معها we know وان أجنها تاس وح أنو كدرك سنة وين درى الدولة دي حسن شيخ محسن مينيس شلت ولا حسن على خير مركو ماشي في اليوم أنا ماشي اللي يقول حميني اللي يقول بهدلي هساه بلد وابري أي قاضيين هايقرر على هذا الفنانين تيدتك مسؤولين تسوعية هذا بندي بدن كلاه هذا الدونات دتك سوعية أنت لايفك كجري قد داية بالله عليكم هايوك عنا ديجي هايوك عنا نربها نبى استاكسنه وان أجن هاي وان كدرك سنة هاي وان أكتين ما أنت حامل مجرى شرعي كلا ضمبين مجرته عدالة مجرته محكمة لو كلا بحي قرصور مجرى وح هذا يراتك جرى ملهن وانو والله بابا على وشاقي يلا فاقي أفكاقة منكو عيرين نينكي مسكين ولا ويانا وحبط كما أكون على أما توصي برير اللودي أنا هذا ولا يدلي كرا قبل إيربوت كده هذا اللي توجنيسو قبل مساكين ما ينهين أما كذا اللي علينا يو أو ماشي وضن كلا حكم اللي قد لي ده أنا محانا مرك أنا محانا مركز حاجين تاجنا مرك يعني وحاويا بيلقوا ما كبنا ويان هلا سيشر جري لايف كجان مرك أمد الصوماليات جارهان دتك قربها كنا دتك الديوة كنا أو wadamada cadaalada iyo kala dambeynta iyo sharcigu ka shaqeeyo ku nool oo ila soo xariiray oo iga walwalsanaata oo ehelka iyo asxaabta iyo dadka Soomaaliyeed bale waxaan idin sheegayaa waa nabad qaba dhibaatana ma jirto wax culaysina ma jiro laakiin xaaladayda okay baan laakiin waxaan ahay qof sugaya cadaalad rabo inuu sugo arintaasna in la iga qanciyo mooyaan sidan ay xaaladan u taagnaanaysaa markii la iga qanciyo oo la yiraahdo Cabdi Dhaanto la hor fariisto dadka wadankan madaxda inta soo horfartay in la yiraahdo maxaad ka tabanaysaa maxaas lagu sameeyay arrintaasna khalad bay ahayd markaas baan kala garbaxaynaa inta ka sokayso Soomaa dagaalku soconaya dhufeeskana waan ku jirayaa ballan Ilaahay weeyaan ama iguna ama igu jeclow isabti waxay gala malahan aniga isabti waxa kale oo rabaa inaan idin sheego maxaa ku qornaa boorka dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka ayada hadda soo qoraysa ayada dhalinyarada anigu dhalinyarada kamid ma ahan miya ma doon baana ma waxaan ahay ma xagga maxaan ahay anigu mise say hadalka u dhigtay ahayd ba goobta jigjigaana jigjiga magaalo Soomaaliyeed kama faanay waan ku dhashay xuduntayda ku duugan de tan ana iskale tan aniga iskale waa magaalo Soomaaliyeed waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed هلا شير قرايو لايف كان هلا شير قرايو أنا قف إني بلشة أنا هاي دتك اللي قد يسني أنا هاي ما أهان وحيابا أن لوبه هنين دتك حتى أنا نهر سيدا صحمة حقنا إنا كاموس صحمة حق إنا كاموس صحمة دتك إنا وحن حبونين أنا نهر سيدنا صحمة تنمرك وحقي وحنا حق لياش ودنك أيانا dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka boqolkiiba intaas waa percentage anagu ma hidde dadka de ma aha bahalka aan xal sheegay magaciisa mar inaan sheegay oo la isticmaalo inta hal mar la gashto may hasha ma ihi qof la dirsado la isticmaalayo caawa 10 kan waa inoo balan dadka hurda na message-ka waan gaarsiin doonaa kuwa hadda hurda ma aha kuwa hadda soo jeedana isku waqti kuwaasna message-ka waan gaarsiin wayna soconaysaa uguma tala galan hadda inaan caytamo oo maxay soo waayay ugumaanan tala galin laakiin awooda iyo kartida raganimada igu jirta inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego oo ay arkaan intaasan doonaya bas hala share gareeyo live kan hala sii share gareeyo ummadda Soomaaliyeed hala sii gaarsiiyo waa dulmi qadiija diiriye waxay ku fadhidaa maqaamkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wasiir u tahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa hadii sida saxda loo dhigo hadii dad la soo aruuriyay oo afar wax laga keenay ay wasiir u tahayna ima qusaysa taas oo ku ilaashanaysa kursigeeda iyo mashaariicdeeda ay rabto inay nafteeda ku nolosheeda iyo midda ay ku dabarto laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ahay nin muwaadin Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa lagu faanayo dhalinyaradu hadda soo baxaya oo lagu faanaya kamida haddii ay noqon waayo oo Khadiija tiraado kamid ma tiid kamid ma bihi aniga laga saacadan laga bilaabanay ima matasho markii laga yimaadana aniga
waxaan hoos joogaa oon ku faanayaa calankaas Soomaaliyeed calankaas Soomaaliyeed moojida xaggana uu igu xidhan yahay gacantana uu igu xidhan yahay jacayl aanu qabo dartiis waxaan xaqlayaash wala fiirsad halkaas taas markii laga yimaadana ammaankayga iyo xaaladahayga kale waxa mas'uul ka ah gobolka Banaadir ayaa mas'uul ka Khadiija waad ogtiin ciyaartii finalka gobolka Banaadir baa bil ayada madaxeeda u baaqatay leerkii demisay waad ogtiin taariikhda waad ogtiin dib u baara leerkii demisay ciyaartii dib u baasay yaani ciyaalo suuqnimo heerka ay ka gaadhay iyo heerka ay ka gaadhay maxal dhahayay ay ka gaadhay waad ogtiin waana lagu taageeray waana lagu wataa uma maleynaya hadda taan cabashadayda in wax laga qabanayo laakiin anigu waxaan diyaar u ahay cabashadayda inaan gudbiyo oo dadka ay qusaysa cabashadayda ay qaadaan waa haddii dhalinyarada Soomaaliyeed oo igu xidhan iyo dadka Soomaaliyeed laga leeyahay mustaqbal waara haddii propaganda iyo maxal dhahayay laga rabo iyo in la isticmaaro la gashto taasna ma garanayo I don't know ma garanayo Khadiija soo naagtaas ma ahayn qoftii ciyaartii gobolka Banaadir baajisay ti Cabdi Dhaanta miyuu daaysa iiga deg bay tiri masrax iiga deg ma yaab halkan jigjiga ma aha bay tiri dhaantana loogama baahan goobta jigjiga weliga yaani qof kasta oo aqligiisa uu shaqeynayo oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu adkaysanaa maanta qofkii aqli leh oo aqoon lana way dhibaysaa dawladda Soomaaliyeed maxaa diiday dhalinyaro waxa jooga 30 da'dooda ay dhantahay PhD mastersa aqoon leh ka aqli badan ka maskax badan sida dadka loo maamulo garanaya habartan cajuusada maxaa dadka loogu abiyuusaya oo madaxa uga taagan dhalinyarada madaxa uga taagan maxaa dhalinyarada loogu abiyuus garanaya sababtaan idin sheegaya marka sababtaasaan idin sheegay rabaa inaan idin cadeeyo sababta waxay tahay lama rabo qof dhalinyaro oo maskaxdiisa saliimta oo aqligiisa shaqeynaya lama rabo ninkii maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo fikradiisa ay shaqeynaysana laba mid baa lagu sameeyaa in la shirqooro la dilo in la basaaso يعني إلا بساسو لا شرقورو لا دلو iyo in la handado la yiraahdo ma hadli karto juq laakiin Cabdi Dhaanta qofka saas la dhahayo ma waayo shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed maanta way og yihiin wax walba ay soo gaara cida ku lug leh way og yihiin ma umaleena xitaa hadii soo gaara inaan cadaalad heli doono oo la baari doono cida yani dib gaarsiisa in la heli doono oo cadaalada maxkamadda saar doono uma umaleenayo mana ahaba mana dhici doontaba waayo waan ogahay xamar 12 sano jooga wixii ka dhacay waan ogahay wadankan ayagoo qolooyinkii kala xukumaan baan joogi jiray wax ku baranay marka dhaqankeeda waan aqaan la igama sheekeenay xamar maxaa ka jira leeyma dhahay xamar waxa ka jira waxba la igama sheegay anaa nin waajibaadkiisa shaqo waajibaadkiisa qaran gutaanahay nin calanka siyaasi Soomaalinimadiisa iyo maxaa dhahay dhalinyaranimadiisa magaalada ku joogaanahay qof kasta oo dhalinyaro Soomaali u yaqaan markii la qaado macallimiinteeda dadka asxaabteeda dadkaan hadda wax wada barano dadkan baa wadaagtanahay oo dhan markii la weydiiyay Cabdi Dhaanta waa qof noocan way ku sheegayeen waxaana Cabdi Dhaanta waxa ku leeyahay dhalinyaro firfircoon oo saas weeyaan dhalinyaro hawshiisa watooyaan anigu hadda haddii aan dhaho waad ogtiin waxaa kaloo rabaa inaan digniin yar idin siiyo waxaa jira beejij feega ciwaano feega laga sameeyo been abuura waxa jira kaliba aniga aan leeyahay oo la jarjaray oo codad la saaray ka digtoonaada arrintaas aad uga digtoonaada xaq u dirirka dadka xaq u dirirka hawaaran adeer waqtiga maanta lama joogo waqtigii qofka afka la qabanayo waa ma joogno xaq u dhimo xaq u dhimo maalin baa la dhintaa moogta dad naga sharaf badan baa dhintay dad naga cilmi badan baa dhintay dad naga waxa dhintay ku haddaan dhimanana kuwaas ma la midnahay حاو أركين دمشق يعني حمر وحبة كمان بيج ديل كمان إن قفك اللي دلو إيزي قفك شهر العبية نينك حبضك هو قفت حتى ماش وحبضك هاي قفت كمان عريدة كمان عري بسكتها جنانية فكسو جينا اللي قدرت تجين وأجي هاي مركب حنا بينا كومنت تجينا لا تك عقاشة كومنت تجوا ذينا نخريه هلا الشركة عرنتنا فريق كمان خدنا wax badan baa noo dhiman
waxaan noo dhiman oo rabaa inaan idiin sheego codadkii xalay oo dhan la ii soo diray baan rabaa inaan idin dhageysiiyo inaad aragtaan YouTube-kan waan soo gelin doonaa dadkaasna waan idinla wadaagi doonaa qaar ka mid ah sawirradooda waan haynaa maybe maslaantii waa soo dirsato ma garanay laakiin waxba igama qaadi karaan way jiraan xamar meelo ka ammaansan waan tegi karaa laakiin waan jeclaa inaan ka taga ma rabo xaqiiqada idiin sheegaya mugta waan helayaa aqoonsiyo international oo waddankaan uga baxo waan helayaa oo fiisaha waddankan dalbada horey la iga soo saarayo waan haystaa laakiin xamar waan jeclaa inaan ka tagana ma rabo waxaan rabaa inaan ka mid noqdo dadka lagu faanayo isbeddelkeeda qaybta ka noqdo inaan noqdaan doonaya insha allah ها naagtaas waad ogtiin layrkii dinsatay layrkii ciyaarihii gobolka banaadir bay dimisay markaasay tiri lama qabanayo mana dhacayso ciyaartan hala sii sheer gareeyo walaalayaal intaasaan idinka codsanaya waayo fariinteeda waxaan rabaa dadka qusaysan in la gaadhsiiyo wax kale ma doonayo anigu waxaan anigu horaan u qeexay inaanan qof u baahan ahayn dhaqaale iyo wax lamida horaan idinku sheegay waad ogtiin dadka yaqaanana way iga warhayaan alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale laakiin dadka waad ka dharagsantiin inaan ahay qof xaquudirira I don't care anaa 4 qof 5 qof oo maxaa la dhahayay la ii adeegsado Soomaali waan iga badan 100 qof iyo wixii ka badan oo la marin habaabiyay aan ka marmaa inta kale ay soo hadhaysay malaayiinta kale iga badan malaayiinta kale ayaa iga badan marka hala share gareeyo live-ka hala share gareeyo intaas aan ka codsanaya dadnimadaada iyo sharaftaada lama iibsado lacag lama siisto dee marka insha Allah hawsha halkaas bay noo joogaysaa dhufaysku uu qodan yahay dhufayskan anigu dadka saaxiibadayda dadka sharafta leh oo magaca iyo sumcadda Soomaalida ku dhaxlay waan u mahad celinaya ila soo xariiray igu dhiirigeliyay inaan khaladaadkii shalay dhacay aan raaligelin buuxda ka dhiibo adinkana waan rajaynayaa inaad kaabihi aan munaasabka ahayn oo shalay toole iga dhacay ma aanan aqbali waayin codsiyadaadii soo gudbiseen oo ahaa live-ka soo gelin ma aanan aqbali waayin laakiin jawaabtiina ayaa igu soo daahday bas jawaabta aan rabay anigu way igu soo daahday jawaabta aan rabay in laga bixiyo waa igu soo daahday shacabka Soomaaliyeed oo igu xidhan oo isugayo oo igu xidhanna waxay rabaan wax lagu qanco inaan la wadaago ayaga doonayaan aan helo raaligelintii iyo qalantay shalay toole masrax baa la igu bahdilay dadka qaar baa waxay qorayeen fanaan bay islaan nin baa wuxuu soo qoraan saaxiibanahay islaam baa masraxa ii diiday iyo laan dheeraan ahay kala ilaali Cabdinaasir buu ahaa ninkaas soo qoray commentigaas wala fiirso hadalkaas anigu de xumaan uma arkin laan dheeraan ahay markaan aan arrintaas markaan ka hadlayay xaalad kale ahayd oo su'aalo ku habboon baan jawaab uga dhigay macnaha ma ahan inaan dhahayo qabiil baan adeegsanaya oo saasay marka saasay ahayd 100% wixii gafa iga dhacay waad ka raali ahaanaysaa ka raali ahaada ma joogno waqtigii qabiil iyo maxaa la dhahay laandheereemanimo lagu faanay qabiil waa wixii xamar iyo Soomaali oo dhan halkaas soo gaarsiiyay waa waxa qolo naga dhigay waa waxa ninba meel ku ooday waa waxa maamul goboleedyo naga dhigay waa waxa qashinkaas maanta iyo waqtiga aan dhax fadhino iyo islaan 60 jir inay ay maxaa la dhahay madaxan looga istaagto sababta u ah oo still qabiil aaminsan haska aaminsanaato iyadoo 4.5 ku timid moogta haska aaminsanaato waa waxa halkaan dhigay kuma goodinayo kuma nafaanayo mana dhiirigelinayo mana buunbuuninayo arrin la xiriidha qabiil iyo maxaa la dhahay kala saarid takoorid kama shaqeynayo
وما أنا أولاني ما نجالي هرنا وما نجالين رالي نكمي لكن سببت عن سدا سوء الواحد أنا جو واحد يقول سمي بان أركي وينده يقول نظرت دهن كذب جوابا وبح عن ودقي مركب نين حناقصا أو بد كل حجرة أيانها وحال نين ويسق هذاني بيها دول كذا سكما إلالي أنا شال نين دول إيه محل قيان سكيل على من ما أنا هين نوحنا سكيل على ني إن نفوس كجرو دجال كجرة dadka kale oo fiidiyoyada isticmaalay YouTube gashana waxa la inay irsaaqada meel kale Allah idin galiyo duca qabooy meel kale ka kalumaysta waxa la isku day xataa in report lagu sameeyo hawada laga saaro kan waa page other waxbana kama qaadi kartaan lama xiri kara kan uu tagay mid wax laga qaban kara ma aad baad mahadsantiin waan idin lana arrin yar oo message baa la ii soo diray live ay soo galgalay telefoonada soo galgalay arrin yar oo rabay inaan si gaar idin la shargareeyaa jirto arrintaas oo arrintaas waxaan rabaa caawa 4 saac ama 9 ama 3 sida u taqaanaan inaan idin la wadaago teleefankayga wixii kulli hadda waa diyaar laakiin hadda dib baan u dhigtay dad aad aan maartay ixtiraamayaba message ii soo diray oo yiri please hawshan u kaadi sidaas darteed waxaan rabaa inaan aad ugu sii dhaaranin oo aad ugu sii dheeraanin oo hawshaas aanan toos u sii gudagelin insha Allah caawa 4 saac baa inoo balana wixii arrintaas ka soo kordhana waan idin la wadaagi doonaa laakiin waxaan idin sheegayaa arrintu inay halkay taagantay arrintu inay halkay taagantay aniga ma tanaasulay no ha sugina taas ha sugina dadka ku fikiraya cabdidhaantinta soo wacdaan baad la hadlinaysaan waad qancinaysaan fiidiyodeena la tirtiraya ha ku fikirna xataa hadduu heshiis dhaco way ku jiraan kuwan store bay ahaanayaan because history-ga weeyaan moogta waayo anigu waxaan rajeynayaa madaxda mustaqbalkeena ka mid noqdo daasi waad ujeedaan hadda dhafoorkaas iyo indhahaasaan hadda kala qaadi lahayo ilgo-aas iga muuqda de waa waxa weeyaan waa stresskii iyo rafaadkii xalay la iigi dhibaatooyinkii xalay toole aan garanaysaa ku dhex jirnay iyo crisiskii wixii weeyaan marka qofna ma jecla inuu madax xanuun isku rido soo moogi ma jecla marka sidaas awgeed hawshu sidaas arrinta nafar kama qodno ma ihi anigu stadio engineer Yiriso ma ihi oo nalkiisa la daminayo haddaad maafiya tahay anigana maafiyana marka makhaayaddan aniga iskale xor baan u ahay adinkana taageerayaasheeda tii bulshada Soomaaliyeed baa tii codsigiina ra'yigiina inaan aqbalo mararka qaar waa waxa weeye waa waajib weeyaan laakiin ha ogolaanina in la dulmiyo kabo yani kabaha la gashto oo kale kabaha la gashto xitaa ha ogolaanina midda kale waxaan rabaa inaan idin sheego shalay toole arrinta markay dhacaysay wala fiirso arrinta markay dhacaysay daway fadhiyaan madaxda qaranka ra'iisul wasaaraha fadhiyay aniga markii la ibaha dilay wuu fadhiyay markii dambe khudbadda markuu khudbeynay hadda waan arkay comment ra'iisul wasaaraha beejkiisa la soo dhigay comment ka bixiyay aan ku yiri dadka ha khaldin dhalinyaradu beenta yaan been loo sheegin aan comment u qoray yaan dhalinyarada been loo sheegin Soomaa dad badan baa action ka bixiyo maanta dib soo dib galay oo igu qoslay moogta markii sidaas la dhahayay aniga meeshan joogay hatta waxa kale rabaa inaan sheego xafladda waan dhameystay kamaanan tagin laakiin xasan al khayre markii waxaan ula wadaag waay fariinteeda waxa la shaqeeyay ragii igu yiri orodoo farmaajo daarooda u tag way la shaqeeyaan xafiiskiisa ka shaqeeyaan أنا مرة بينا ضد سكوتر مرة بينا شقة ضد قنصة مرة بينا بداس قالوا لكن والله وبالله وتالله ولا يجري وأنا قرنا إنسان قف كاستا ضدك الدولة ده كشقية يضدك صاحبه ده أنس نقانو قف كاس هذه أنا لا شير قروا ويقرني أسجنوا ويداونا يوسويه هبين كاسات هذا عندي شيء هبين كي علن كي هاي هبين كي علن وماشي الله يو طالع ده دحتور لجو قبني حفلة ده هبين كاس هاي هبين كي اللي يقول إرجاس وأنا كان حتى وقت أركتين الزهراء صور عن لقى لنا صادق هالك
يا واد أركتين ويد أركتين سماه dadka igu xidhan way ogyihiin waydu aragteen soomaha inaan soo dhigay arrintaas dawladdu mismeeno dawladda waan jecel waan ku faana makhraatina waxa laga yahay inaan activity-yada ugu qaban ama fan ha noqoto ama si kale ha noqoto inaan qayb ka qaadanay dadka qaarna way ogyihiin intaan ogeyn hadda loo sheego hal gaarsiin taankii walaal nasiixa shaqlan ku salaamaya adigan hadda kor farta iga dhacday raalli haw farta iga ka dhacday hadda kor aan ku salaamay walaal macaan sharafan ku haya aad baan ku salaamay walaal nasiixa adinka kale saaxiibada kale wada salaamay saasay ahayd marka nin xafiiskiisa dad ka shaqeeyo dadkaas ka sokeeyaan intaad u laabato marjac ma noqon kartaa su'aashaas rabaan inaan weydiiyo ninka la shaqeeyo xafiiskii Prime Ministerka ku dhahaya farmaajo daarood adigu daarood baa tahay ordo war anu ma baahiba dadkaas daaroodna ma ihi maxal dhahay iyo dirna ma ihi cidaha kale oo inta kale ka soo hadhayna ma ihi aweena ma ihi anu fanaan qaran baan ahay calankaas baan wataa miskiin ilaahay baan ahay ardaydaas maxal dhahay hawshooda wataan kamid ahay yalla igu khaldamin ma yaho intii la soo jarjaray soo galin doonaan dadkii oo caaq ahaa marka nin sidaas yiri oo shalay sidaas dhahay intaan u tago cabasho uma gudbinayo inaan iraado adeer arrintaas jirtay wax ka qabo ودانو فنان meelaha ka heesanahay awalba wuxuu soo soo qabay islaantan durbaanka wadato intay ku damash xaradaysa asagana uu raali ka yahay asaga uu og yahay inaan waxba gelin waxa laga yaabaa inuu camiraada iyo qosolka iyo makhaayada ay kala kicinaysan inuu ka raba laga yaabaa laakiin uu ku daro way dhici kartaa laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed isbedela nacala sheedan ku yaala dhalinyarada jira yaan idin noqon wasiir idin ma noqonayso wallahi idin ma noqonayso idin ma noqonayso islaanta 20 sano jir ah yaro wasaaraddaas dhalinyaro iskale dadkii fankiina iyo maxaa idin wacyi galiyana u bahdilayo waa hadda dad aqli loo wax fahmaytiin haddii aad tihiin ma jirto aad baa la ii soo wacay marka waan idin salaamaya telefono badan baa ii soo galgalaya insha Allah waxaan inoo balana caawa 4 saac ayaa inoo balana telefoonada ii soo galgalaya telefoonadaas aan rabaa inaan ka jawaabo waad mahadsantiin waxa kale oo rabaa inaan fariinteeda aan rabaa inaan ku daro boqolkiiba boqol waxaan rabaa inaan ka raali geliyo message-yada iyo fariimaha la ii soo diray iyo koolalkiina kama wada jawaabi karo waan idin jecelahay idin ma nabci waan idin jecelahay waan idin ku faano waad garab istaagteen waan la socdaa wax walba yaadi muujiseen صديق عشي ما ندين جعل عننا